كوب كان وكوب لغو حسايو إنجنيريسو إلى ونحرسته وأنا مركني سدحات عن قانون كفر أحسن له. إنجنيرك وحو كتجي تاريخ wuxuu ka tagay qalbi wanaagsan wuxuu ka tagay dadkii soo jecel naadiga dowladda hoose ee Muqdisho Club ayaa ku guuleysatay koobkii lagu maamuusay Allah u naxariistay duqii hore caasimadda Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow waxaana kooxdan ay koobka ka qaaday kooxda madbacadda qaranka ee wasaaradda warfaafinta waxaana labadan naadi dib u soo nooleeyay gudoomiyaha hore gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar injineer Yariisow ciyaartan oo ahayd sanadkii afraad oo lagu maamuusay gudoomiyaha hore gobolka Banaadir mudane Cabdiraxmaan Cumar injineer Yariisow ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda madaxda xiriirka Soomaaliya kubadda cagta oo horeen ciyaartan munaasabada waxaa hadallo kooban ka jeediyay qaar ka mid ah madaxdii ka soo qayb gashay wax macna leh qofkii qabtay taariikhda xusaysa waxa maaragtay lagu yaqaanaa gudoomiyihii garoonkan inuu maanta ku magacaaban yahay asaga magaciisa labada koox oo maanta meeshan ku ciyaartana kooxa asagu aasaasay oo asagu maaragtay dib u soo nooleeyay tahay waa uga mahad celinaynaa ummadda Soomaaliyeedna ha u soo wada ducayso afar sano guuradii waaye maantay labada tiimna waa u hambalyeynayna wuxuu ku bilaabmay hadda afartii sano lagu soo wada marxalad oo laba kooxood waxaan u bedelaynaa marxalad aad u weyn koob weyn waxaan ka dhigi doonaa insha Allah qiimo leh koobka ugu waaweyn ee dalkana aan gaarsiin doonaa duleeraad mar kale waxaan u mahad celinaa sidoo kale xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo warkacay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gudoomiyaha Alashino iyo tiimkiisa sidii ayagana mar walba ay qayb uga ahaayeen ciyaaraha sidaan horumarinta iyo ciyaaraha sidaan kala memorization ama xusuusaha u ah dadka shuhadada ugu horeeyay injineer Yariisow sanad kastaba xuska loo sameeyo asaga iyo inta la dhimatayba aad iyo aad ayaan runtii uga mahad celinaa dowladda Soomaaliyeed iyo qoyska injineerka oo runtii legacy-ga injineerka runtii wax badan ka qabtay insha Allah bacda warbaahinta waa idin kaga mahad celinaya maanta noo yimid ciyaartan lagu xusaayo gudoomiyahan iyo shahaadadii gobolka Banaadir labadii naadi oo aasaasay madbacadda qaranka iyo naadiga dowladda hoose labadaba waagii uu yaraa oo u soo maartay dhalinyarada ah oo u soo ciyaaray xulkii qaranka uu ka mid ahaa injineerka wuxuu ka tagay taariikh wuxuu ka tagay qalbi wanaagsan wuxuu ka tagay dadkii soo jecel ilaahay ayaana naga jeclaaday u baahanahay justice ina u hayno aqli maaha in la yiraahdo ma naqaano qofkii dilay iyo wixii ka dambeeyay oo arinta intaas ka ekaato waxaan u baahanahay haduu ilaahay yiraahdo inay samxanaya u hayno justice hatta justice adduunyada lagu waayana insha Allah aakhira lagu heli doona marka waxaan leenahay waan ku baahsantiin dadkii dhamaan ay samxanayada ciyaartooyda maanta ka soo qayb gashay ciyaarta iyo dadkii soo maamulay iyo especially journalistiyaasha gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cali Cabdi Maxamed ayaa isna sheegay in markasta ay diyaar u yihiin in la weyneeyo magaca haligii hore kubadda cagta Soomaaliya soona maamulay maamulka gobolka Banaadir mudane injineer Yariisow waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto annagana markasta taariikhdiisa dhan hayna waay waxa kale ku hoolanaa waqtiga u maqnay xulka qaranka 20 jirada Soomaaliya iyo xulka qaranka Djibouti ayaa Djibouti ciyaarkooda ciyaaray ayadoo ujeedku ahay marka dambe in la keeno Muqdisho oo istaad Muqdisho ku ciyaaraan intii booseska uu socday xulka Soomaaliya ku badiyay 4-1 intii booseska socday ayaa tiiraba u timiday waxa leen Allah u naxariisto dhamaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ehelkiisi waxaan leenahay markasta qalbigeena ku weyn tahay gabagabadii waxaa kulankan laba gool eber koob ku qaaday naadiga dowladda hoose ee Xamar waxaana la gudoonsiiyay koobkii ay ugu talagaleen xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta iyo guddiga soo qaban qaabiyay kulankan waxaana warbaahinta garoonka injineer Yariisow kula hadlay Maxamed Cabdiraxmaan injineer Yariisow isagoo u mahad celiyay cid kasta oo kaalin ka geysatay xasuusta abihiisa 24 July ilaa 1 August waxaan rajaynaynaa maxalla inay noqoto ciyaar friendly oo xiiso badan oo dhammaan 17 degmooyinka gobolka Banaadir isku keeni karto maantana waxa marona gabagabowda xuskii toddobaadkan shoodadii gobolka Banaadir waxaan ku bilaawnay jumcada hore Mawla Macalin Nuur sabab ogtiin alxamdulillah waa ku faraxsanay inaan maanta gabagabowno wax kale ma ah hadafkeena waxay tahay in maxalla in ahdaafkii iyo riyooyinkii aabahay lahaa inaan dib u noolayno aan sii soconno oo si noqonin maxalla dadkii wadankan haliyay u noqdeen oo u sheedeen in la xilmaamo runtii aabo wuxuu kamid ahaa astaamihii qaranka oo aan marna iloowi karin oo anina maxalla si gaar ah idil gari jiri oo maanta ii qasbata maanta aan taaganay inaan maxalla wadankayga adeegoyo sabab ognahay waxaan ku jirnaa dib u horeyn
waxaan ku qasbanahay inaan maxalla kaalinteen aan qayb gaarno aan maxalla wadankan horumartiisa ka shaqeyno si ay noqon lahayd wadan la tartami karta wadamada adduunka si kastaba Allah u naxariistay gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Mudane Cabdiraxmaan Cumar Injineer Yarisow intii uu joogay wasaaradda warfaafinta wuxuu dib u soo nooleeyay sanadkii 2018 naadiga madbacadda qaranka ee hoos tagta wasaaradda warfaafinta halka intii uu hayay gobolka Banaadirna uu dib u soo celiyay kooxda dowladda hoose ee Xamar ee MCC wuxuuna ahaa mas'uul kaalin weyn ka qaatay horumarinta ee geedi socodka guud ahaan isboortiga Soomaaliya koobka munaasabada waa anaga injineerka labada kooxood oo asaga soo nooleeyay waaye runtii sanad walbana anaga ciyaarno runtii waana markeen saddexaad aan qaadno ku faraxsanahay alxamdulillah insha Allah taala intii koro meeshaas ku dhimatana Ilaahu naxariisto